أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل. miyaad ogtahay dadka ilaahay ku qosli doono iyagoo haddana adduunyada ku nool bishaariya khayr baa kuu sugnaatay kuwaasi haddaad ka mid tahay. ilaahay dhammaanteen haynaga yeelo. ilaahay miyuu qoslaa? haa, ilaahay waa qoslaa. waxaana jirta camallo ama arrimo oo qofka muslimkaa sameeyo oo ilaahay uu ku qoslo isagoo qofkaasi waxa uu sameeyey rabbi ku faraxsan. ilaahay isagoo ku faanaya addoomihiisa waxay samaynayaan oo acmaal wanaagsan ah kuwaasoo ilaahay raalli gelinaya. walidaalikuu ilaahay ku qoslayaa jalla jalaaluh. waxyaalaha kan ee qofka hadduu sameeyo ilaahay uu ku qoslayo isagoo ku farxaya oo ku faanaya, rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam baa noo sheegay, wuxuuna noogu tilmaamay axaadiis kala duwan. arrimahaasi qayb ka mid ah ayaynu halkaani ku wada wadaagaynaa walaalayaal. waxaa ka mid ah saxaabigii la odhan jiray sacad bin mucaad. ilaahay ka raalli noqda saxaabigaas. ilaahay ayaa ku qoslay jalla jalaaluh markuu dhimanayay isagoo ah mid shahiida. saxaabiga kani waa midkii carshiga allaha raxmaanka uu sababtiisa u gilgishay ama uu ruxmaday. haweenay saxaabiyada oo asmaa la yidhaahda ayaa waxay tidhi sacad bin mucaad markuu dhintay hooyadiis ayaa qaylisay ayadoo geeridiisa ka murugaysan. nabiyullaahi maxamed baa yidhi, muwayse ilintaadu istaagayn, murugadaaduna aysa tegayn. wiilkaadu wuxuu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee ilaahay ku qoslay, carshiga ilaahay baana u ruxmay. ka naxiduu ka naxaya geeridiis, ilaahay xaggiisa laga jeclaaday wiilkaada oo jannada ayuu ku jiraaye waxba ha u murugoon, ayaa nebi maxamed haweenaydaas ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ruuxa kale waxa weeye waa ruux salaatuleyl u soo istaagay oo ilaahay hortiisa istaagay. nebigeenna wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ruuxa habeenkii markuu hurdo saqda dhexe go'a ama bustaha intuu iska qaaday weliba isagoo macaansanaya ilaahay dartii u soo istaagay, weysaystoo tukaday, ilaahayna baryey inuu ilaahay ku qoslayo addoonkaasi weliba hadduu dhallinyaro yahay. saddex ka mid ah dadka ilaahay waa ku qoslaa isagoo ku faraxsan waxay samaynayaan. waxaa ka mid ah qof soo istaagaya habeenkii isagoo tukanaya salaatuleyl. qaybta kale waxa weeye oo ilaahay ku qoslay haweenay iyo nin isqaba waxay sameeyeen. haweenaydaas iyo ninkaa isqaba waxay martigeliyeen martida rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed nin baa u imaaday isagoo martigelin doonaya. kadib buu qof ku daro wuxuu yidhi, oro gurigaygaasi gee. kadibna guryihii rasuulka ilaahay dhammaan biyo mooyaane wax kale waa laga waayay calayhi salaatu wasalaam. ilaa uu markii dambe rasuulka ilaahay yidhi, yaa ii sooriyeynaya ama ii martiqaadaya martidaydaan? nin saxaabiyaa yidhi, rasuulka ilaahay oo aniga. ninkiibuu ku dara marka. ninkii muxuu guriga kala kulmay arrin la yaab leh, arrintaasoo keentay in ilaahay ku farxo asaga iyo xaaskiisa. gurigiisa markuu geeyey ninkii ayaa wuxuu ku yidhi xaaskiisii, karaamee, kani waa martida rasuulka ilaahay. haweenaydaa waxay tidhi, ma hayno waxaan ka ahayn carruurta cuntadoodii. wuxuu yidhi, cuntada ii diyaari, faynuustana ama ifkana demi, carruurtana seexi. cuntadii bay diyaarisay, faynuustii bay demisay, carruurtiina waa seexisay iyadoo maaweelinaysa. cuntadii yarayd ee ciyaalka loogu talagalay ninkii martida ahaa ayaa la siiyey. ayaguna waxay matalayaan maadaamuu meesha mugdi tahay sida iyagoo wax cunaya si aysan ninka martida uga yaxyaxin uusan u dhihin cuntadii reerka maadaa lagu siiyey. waagii baa u baryey reerkiioo baahan oo ayagu waxba cunin. rasuulka ilaahay buu ku soo kallahay ninkii. markaasaa nebi maxamed wuxuu yidhi, ilaahay xala waa ku qoslay ama wuu la yaabay waxaad samayseen adiya xaaskaada. ninkaas iyo haweenaydaas sababtooda ilaahay wuxuu ku soo dejiyey aayadda suuratulxashri ku jirta, wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. naftooday ka qaadayaan waxay u baahan yihiin oo walaalkood ayay siinayaanoo ka daran. mu'miniintaasi baahi waxay u qabaan ayay walaalkood siinayaan, waayo naftooda nadiif ah oo bakhaylnimo nooc kastay tahayba laga nadiifiyey. sidaas laajligeed ba ilaahay aayadda wuxuu ku afxiray, waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika humul muflixuun. qofka bakhaylnimada naftiisa ka badbaada kaas ayaa liibaaday, kuwaas ayuu kuwa guulaystay. qofka kale waxa weeye oo ilaahay ku qoslaya waa qofka ugu dambeeya ee jannada geli doona. qofkaasi ka suuli mayo inuu ilaahay baryayo ilaa marka dambe ilaahay ku qosla jalla jalaaluh. markuu ducaysto waa qofka ugu dambeeya janno geli doonee ayaa ilaahay wuxuu leeyahay gal jannada markuu gala rabbi wuxuu leeyahay waxaa rabti codso. rabbigiisba wax weydiisanayaa waxyaalo badan ayuu maskaxda ku qabsanayaa.
ilaa marka dambe ilaahay wax walba xasuusinayo markii dambe uu yidhaahdo intaas ayaan rabaa wax kaloon sheegta ma garanayo ilaahay wuxuu yidhi intaas iyo in la midaad jannada ku leedahay awal markii hore waxaa laga soo saaray naarta dembigaa laga soo jaray tawxiidkiibuu ku badbaaday jannada galbaalley ilaahay buu baryaya oo wuxuu leeyahay ilaahayow naartaani mar haddaa iga soo saartay foolxumadeeda iga leexi wejigayga xalkaa u leexi marka wejigiisa naarta laga duwo ayuu wuxuu arkayaa geed qurux badan oo har weyn leh markaasuu wuxuu leeyahay ilaahow geedkaasi ii dhowee rabbi wuxuu leeyahay haddaan taa kuu fuliyo wax kale miyaad weydiisanaysaa maya ayuu yidhi geedkii markii loo dhowey wuxuu leeyahay ilaahow harkiisa igee ballantii buu ka baxayaa bilaa-aada ilahay wuxuu leeyahay haddaan taa kuu fuliyo wax kale ma weydiisanaysaa maya rabbigayow markii geedkii lagay wuxuu arkayaa naciimada iyo jannada iyo barwaaqada xadiis dheer ayaa rasuulka ilaahay uga warramay ilaa xataa rasuulka ilaahay uu qoslay sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ku qoslayaa laba nin labadaasi nin midi waa muslim midna muslim ma ahayn dagaal bay iskaga hor imaadeen kii muslimka ah ayaa la dilay labadooduna jannay galeen sababtoo ah kii muslimka ah ayaa la dilay kii aan muslimka ahayn mar dambe ayuu soo muslimay oo jihaadkiibuu ku dhintay sidaa darteed bay jannada wada galeen ilaahay kuwaasi waa ku qoslayaa sida rasuulkeennu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam labadoodu see janno u gelayaan baa rasuulka ilaahay la weydiiyey nebiyullaahi maxamed wuxuu yidhi midkaas wuxuu ku dagaalamayay fii sabiilillaahi kadib buu ku shahiiday kadibna ilaahay wuxuu ka toobad aqbalayaa kii wax dilay oo markuu wax dilaya aan muslim ahayn kadib buu islaamayaa kadib buu fii sabiilillaahi ku dagaalamayaa kadib buu shahiidayaa markaas jannaday ku wada kulmayaan inaad wax ka faa'iideen waa filaynaa sidaa darteed ayaynu u soo qaadannay qayb ka mida dadka ilaahay uu ku qoslayo acmaashooda waxay samaynayaan isagoo la cajabaya ilaahay hanaga yeelo dadka ilaahay xaggiisa laga jecel yahay oo laga soo dhoweeyo rabbi hanaga dhigo kuwa salaada ilaaliya cibaadooyinkana xafida aad iyo aad baad u mahadsantihiin baaraka allahu fiikum